السلام عليكم. halkani waa Kismaawi saaxiib yaal soo dhawaada. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah oo la xiriira diyaaradaha iyo duulimaadka. mowduucaas oo ah layers of atmosphere ama lakabyada atmosfeerka. sidaan ognahay diyaaraddu waxay ku dhex socotaa hawo. hawadaasi waxay isugu jirtaa lakabyo kala duwan, yacni layers kala koreeya, mid walba uu leeyahay astaamo u gaar ah. bal aan baranno waa maxay horta atmosphere. marka ugu horeyso dhulka wuxuu leeyahay lakabyo atmosphere ah ama hawo jawiyaal ah oo ka samaysan gases isku tagay. gas markaan leenahay yani waxay noqonayaan different gases sida nitrogen, oxygen, argon kudi. marka waxay ka difaacaan dhulka shucaaca iyo falaaraha kowniga ah ee ka imaanaya outer space oo ah hawada sare. intaa kadib atmosphere wuxuu u egyahay wax muxuu ahay space furan oo kale. marka waxay ilaalisaa oo ay hawada ku haysaa average temperature celcelis ah, macnaha meel walba temperature leedahay habeenkii iyo maalinkiina isbedelayaan dabcan maadaama maalinkii qorax joogto habeenkiina qoraxda ay maqan tahay. constant markay tahay marka loo fiiriyo wareegga habeenkii iyo maalinkii. marka waxay u kala bixaysaa 5 qaybood. atmosphere-ka wuxuu u kala qaybsamayaa ilaa 5 qaybood. midka ugu horeeya lakabyadiisa waxaa la yiraahdaa troposphere. midka labaad waxaa la yiraahdaa stratosphere. saddexaad halka la yiraahdo mesosphere. afaraad waxaa la yiraahdaa thermosphere. kan shanaadna waxaa la yiraahdaa exosphere. haddaba mid kasta waxaan baranaynaa iyo astaantiisa. aan ku horeyno troposphere. troposphere means waxa laga wadaa change. marka maxaa lagu bixiyay change oo magaca lagu keenay cimilada ama hawada xaaladeeda, yani waxay isku bedelaysaa si joogto ah, wayna isku qasmaysaa gaasaska isku qasmaayo midba midka kale. saa darteed waxaa loo bixiyay lakabkan troposphere. ereyadana waa ereyo latini ah, macnaheedu marka waxay noqonaysaa tropos. sphere waa lakab camal, laakiin tropos waa ereyga ugu horeeya waa macnihiisu waa change ama wax isbedelaya. lakabkan waa meesha ugu hooseysa ama ugu dhow dhulka. oogada dhulka meesha ugu soo dhow ayaa waxaa la yiraahdaa bay tahay troposphere. troposphere waxay fisan tahay dhulka ilaa iyo meesha ugu hooseysa markii dhulka laga kaco ilaa 12 kilomitir ama 11 kilomitir waa la yiraahdaa. wixii ka hooseeya waxaa la yiraahdaa troposphere. markii mayl ahaan loo tiriyana waxay noqonaysaa 7.5 mayl joog ahaan kor markii loo aado. sidoo kale feedna waa lagu cabiraa markii altitude kala macnaha jooga kore la cabirayo. iyadana waa u arki doonaa meelo kale ku arki doonaa, laakiin marka ugu kilomitir inaan ku fahanaa muhiim ah. marka haddadan waxay noqonaysaa 12 kilomitir ka sare dhulka meesha ku taagan tahay markii kor loo aado 11 kilomitir ama 12 kilomitir. intaas waxaa la isku yiraahdaa troposphere. troposphere marka wuxuu ka kooban yahay 75% of all air in the atmosphere. macnaha hawooyinka atmosphere-ka si guud ugu jiro 75% waa laga helayaa qaybtan troposphere-ka la yiraahdo. water vapor-na way leedahay, muxuu ahaa taasoo samaysa muxuu ahaa daruuraha meesha iska taagan wax kale ma ahan, waa hawadii macnaha qoraxdii ku dhacday badda oo samaysay wax la yiraahdo vibration oo ah hawadii marka isku bedesho liquid ama liquid markuu isku bedelo yani markay kor soo aado taas waxay noqonaysaa clouds noqonaysaa ama daruur iyo roob hadhow ay noqonaysaa. vapor marka waxa waaye markay isku bedesho from gas to liquid markay isku bedesho waxa la yiraahdaa vibration. marka hawadu maxay ka kooban tahay gaasaska ay ka kooban yihiin maxaa kamid ah hawadan naga koreyso. waxa ogaanaysaa waxaan hadda waa macluumaad muhiim ah. 78% waa maadada nitrogen-ka ee gaaska ah. yani hawadan koreeto
anaga hal nooc inoo aragnaa laga yaabaa laakiin noocyo badan ay ka kooban tahay midda ugu badan waa 78% ah 78% waxaa la yiraahdaa waa nitrogen halka 21% ay tahay oxygen hal boqolkiina waa gaasiska kale soo haray sida argon carbon dioxide water vapor etc iyo wixii lamid ah marka waa dareemi kartaa meesha nitrogen ayaa ugu xoogan waxaana ku soo xiga oxygen saasayna ku noqonayaan 100 aan ka soconno hot air balloons balloonada ama maxaa la yiraahdaa balloonkan meesha uu muxuu ahaay ku duulo waa meeshan troposphere-ka ee ugu hooseysa dhulka macnaha lakabka ugu hooseeya ah ee dhulka ugu dhow aan u imaano lakabka ku xiga kaas oo ka sareeya stratosphere la yiraahdaa intuu ka yimaado macnaha strat waxa loola jeedaa waxa laga wadaa layer ama lakab ayaa laga wadaa marka lakabkan asaga hadana wuxuu ka sii kooban yahay group isku xiran oo hadana lakabyo kale ah xuduudda u dhaxaysa marka stratosphere-ka hadda aan joogno iyo troposphere waxa la yiraahdaa tropopause ala yiraahdaa waa meesha diyaaraduhu ay ka duulaan halkaas waay maadaama inta ay tiraahdo ay tahay troposphere intana ay tahay stratosphere meesha u dhaxaysa ee xuduudda u ah bay diyaaraduhu ku duulaan commercial aircrafts kula dhaho kuwa ganacsiga diyaaradaha dhexe meeshaas ay ku duulaan stratosphere layer-ka wuxuu fidsan yahay laga soo bilaabo tropopause-ka aan soo sheegnay hadda 50 kilometers uu fidsan yahay above the earth's surface dhulka oogadiisa marka laga tiriyo macnaha meesha aad ku taagan tahay ee dhulka sareediisa marka laga tiriyo ilaa stratosphere-ka waa 50 kilometers mile marka loo tiriyana ay noqonayso 32 kilometer 32 mile aan dhahay sorry marka lakabkan wuxuu ka kooban yahay thin layer of ozone layer thin ah oo la yiraahdo ozone waa maado oxygen ay ku jirto oo ka difaacda dhulka waxyaalaha dhibaatada u keenaya ee korka imaanaya waana maado muhiim u ah oo meesha laga waayana ay noqonayso muxuu ahaa xaalad halis ay galayso sida darteed xitaa maadooyinka la isticmaalo dhulka laga isticmaalo qaar waxa jira mamnuuc ay tahay oo dib u keenaya sida warshadaha kala qiiqooda waxyaalaha qaarkood oo dib u keenaya jira maadadan ozone layer-ka la yiraahdo naga difaacda waxyaalaha harmful-ka ee ka soo dhacda dhulka hawada sare ama qoraxda shucaacada qoraxda ka soo dhacayo ultraviolet radiation from the sun bay nuugaysaa marka waa protective layer waa lakab difaaceed nuugaya ama qabanaya waxyaalahaas harmful-ka ah waxyeelada ah ee ka imaanaya qoraxda shucaacadaas marka high altitude weather balloons kuwa balloonada ama baalshootyada kor muxuu ahaa meelaha sare gaaro waxay ku duulaan stratosphere meeshaas ay ku duulaan waxaana loo isticmaalaa in lagu kormeero xaaladaha atmosphere-ka hawada xaaladeeda iyo cimilada research-ka lagu sameeyo marka weather balloon-kaas wuu gaaraa stratosphere-ka mesosphere aan u imaano oo ah lakabkii saddexaad ee ka sarreeyay oogada dhulka lakabkani ama layer-kani wuxuu ku yaalaa inta ka sarreyso stratosphere kana hooseysa thermosphere oo aan u tagi doono waa third layer waa kan saddexaad oo marka dhulka laga tirinayo 35 kilometer ayuu ka sarreeyaa dhulka waa thick marka lagu leeyahay waa culusta hawadiisu marka transition boundary meesha kala qaybinaysa mesosphere iyo stratosphere iyadana waxaa loo yaqaanaa stratopause waa halkaa stratopause marka joogtid mesosphere hawada molecules-keeda way yar yihiin si ay u soo nuugaan
electromagnetic ray shucaacyada ka imaanaya qoraxda. sidaa darteed waxaa meesha ka jiro waxa la yiraahdaa meteors ama meteors. markii laga hadlayo carabi ahaan markii la dhahana waxay noqonaysaa shahab. waa gantaalada hawada sare ka yimaada. quraankana ku jirtaa fa atba'ahu shihabun mubin. marka shahadeynta isku dayaan inay waxyiga soo xadaan oo dhagta u dhigaan waxa lagu soo tuuraa gantaalo. laakiin intay waxay leeyihiin ayaga yani waa piece of rock, waa gabal dhagax ah or matter ama wax kale ah that has been broken off in the space. wala soo jibiyay space-ka laga soo jibiyay leedahay ay leeyihiin waxayna ku safraysaa through the atmosphere. marka dhagax kulul yani shihaabku uu noqon karaa, shihaabku waa gantaal yani ilaahay baa yaqaana. marka laakiin waa wax la og yahay oo la arki karo microscope-yada laga isticmaali karo. marka wuxuu leeyahay inshan waa gabal dhagax ah oo hawada sare ka yimaaday kaasoo ku dhex safrayo atmosphere-ka. markay soo jaraan mesosphere, markay soo gooyaan frictionka isku dhaca iyo momentumka ayaa wuxuu keenayaa gantaalka ama shahabkii meterkii inuu gubto oo holco. markaas waxay u muuqanaysaa sidii iftiin ama light jaraya cirka. waana arki kartaa habeenkii oo kale marka aad cirka u fiirsatid waa wax caadi ah dareemaysid. thermo aan u imaano oo ah kan afaraad waxaa laga wadaa thermo heat haddii laga macnihiisa thermo haddii laga soo qaado ereygaas. markaad joogtid layerkan waxaa haysataa very high temperature aad u sareeyo, aad u kulul, heerkul aad u sareeya haysataa. wuxuuna ku yaalaa layerkan meesha ka koreysa mesosphere kana hooseysa exosphere oo aan u tagi doono. mesopause ayaa la yiraahdaa xuduuda ama meesha kala qaybisa mesosphere iyo thermosphere. waxaa la yiraahdaa mesopause. waa sida haday meel kasta waxa raacaysa pause tii diyaaradda markii waxa meelay ku duuleysaan dhahaynina waxay ahayd tropopause. marka waxaa la yiraahdaa meeshan ayadana sidoo kale mesopause maadaama ay kala qaybinayso mesosphere iyo thermosphere. waa meesha ugu qabow dhulka korkiisa, macnaha hawada kore marka laga hadlayo waa meesha ugu qabow coolest part of earth's atmosphere. marka thermosphere waxay fidsan tahay marka laga eegayo dhulka korkiisa 85 kilomitir ilaa 700 kilomitir. meel ahaan u dhigmata 435 miles. meeshan marka thermosphere waxaa laga helaa wax la yiraahdo aurora. aurora muxuu yahay? aurora waa northern lights and southern lights wax la yiraahdo waqooyiga iyo koonfurta iftiinna ka baxa waaye. satellites-ka marka waa aurorahaas baa meesha laga helaa iftiinkaas waaye. marka satellite-yada inta ugu badan meesha ay joogaan waa meeshan. aurora marka muxuu yahay? waa iftiin dabiici ah oo ka muuqanaya cirka gaar ahaan meelaha joogoodu sareeyo. waxaa keenay isku dhaca particle-ada ama qaybaha hawada ee charger-ka wata, macnaha minus iyo plus-ka yani markay isku dhacaan ayaa keena iftiinkaas. waliba wuxuu ka dhacaa high altitude atmosphere meelaha joogooda uu aadka u sareeyo. aan u imaano layerkii ugu dambeeyay ee shanaad oo la yiraahdo exosphere. exo means waxaa laga wadaa outside, banaanka. marka wuxuu matalayaa meesha ugu muxuu ahay sareysa, ugu banaan, ugu koreysa layerka. layerska marka laga hadlayo dhulka korkiisa layerka ugu koreeya waaye. waa inta ka sareysa 700 kilomitir iyo wixii ka sareeya. waxay fidsan tahay marka laga hadlayo from the top of the thermosphere ilaa 700 ama
10,000 oo kilomitir above earth's surface marka laga hadlayo laga soo tiriyo dhulka oogadiisa. layerkan dhexdiisa marka atomiska iyo moleculeska ayaa midba mid kale wuxuu ku cararaya spaceka gudihiisa. ma fahantay? high altitude satellites-ka hawada sare macnaha kuwa ugu sareeya meesha ka wareegdaan waaye ay dhulka ugu wareegtaan planetka dhan ay kor ka maraan meeshaas ilaa dhulkaas waxaa la yiraahdaa macnaha hawada ilaa heerkaas waxaa la yiraahdaa exosphere. waa macnaha waxaan xadidnayn waaye wixii ka koreeya 700 bay noqonaysaa. marka aanu imaano heerkulka iyo dhererka anagoo isku fiirino yani layer kasta iyo aan ogaano heerkulkiisa heerku uu gaarayo. markii la joogo dhulka oogadiisa sare meesha qofka uu ku taagan yahay aan ku noolnahay sida normalka ah ama room temperature-ka waa 15 degrees Celsius. markii la tago marka troposphere waxay noqonaysaa -56 ay noqonaysaa yani aad buu hoos u aadayaa temperature-ka aad buu dhacayaa. troposphere markii la joogo marka remains constant bay ahaanaysaa hawadu temperature-keeda isma bedelayo macnaha. markii la tago stratosphere hawadii kor macnaha temperature-ka kor u kacaya awal decrease oo hadda increase noqonaya ilaa -2 imaanaya. awal muxuu ahaa -56 iyo -2 kelvin -2 yawen -50 waa aad u hooseysa. marka hawadii way soo kululaanaysaa sida hore way ka kululaanaysaa marka loo fiiriyo meesha ka hooseysay. haddana dib ay u laabanaysaa marka la joogo mesosphere la joogo -92 ay tagaysaa yani aad bay hoos ugu dhacaysaa temperature-ka aad buu hoos ugu dhacaya. haddana u imaano thermosphere ilaa kor waxay dhaafaysaa 1200 oo degree centigrade. mawduucan maanta intaas ku eg yahay waan si ambaqaadi doonaa insha Allah. khayr baan idin rajeynayaa hana la sii shargareeyo waana laga faa'iideysto maadaama aan nahay waxa aan soo gudbinayno uu yahay waxa aan rabo in dadku ay ka faa'iideystaan waliba dhalinyarada daneynaysa culumtan maadaama uu yahay wax loo baahan yahay oo inta badan aan la sharixin. marka khayr badan idin rajeynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.